sida aanu ka helayno warar lagu kalsoon yahay waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday ilaa kala furfuro xildhibaanadii tirada badnaa ee dhawaan saxiixay mooshinka lagu ridayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid xogta aanu helayno ayaa tibaaxaysa in markaan olole xoogan ay bilaabeen xubno ka tirsan baarlamaanka ugu ololeynaya dhinaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kuwaasi oo xildhibaanada ku soo jiidanaya lacago badan oo ay siinayaan xildhibaanada taageera siyaasadda Saacid xildhibaanadii horey u saxiixay mooshinka lagu ridayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo aan qaarkood wax lacaga ka qaadanin dhinaca madaxweynaha ayaa hadda bilaabay in dhinaca kale ay ku biiraan kana qaataan lacagaha lagu kasbanayo codadkooda in la kala furfuro xildhibaanadii saxiixay mooshinka lagu ridayo ra'iisul wasaare Saacid ayaa timid kadib markii xildhibaanada qaarkood ayagoo aan wax lacaga la siinin ay saxiixeen mooshinkaasi oo hadda laga dhaadhiciyay in xubnaha baarlamaanka ee madaxweynaha u ololeynaya taas oo ay kaliftay inay u wareegaan markaan dhinaca ra'iisul wasaare Saacid taageerayaasha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubno kale oo caan ah oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda ku jira kala furfurka xildhibaanadii saxiixay mooshinka waxaana shalay lagu arkayay xildhibaanada taageersan ra'iisul wasaaraha oo olole xoogan ka wada gudaha xarunta golaha shacabka dib u dhaca ku yimid mooshinkii la doonayay in lagu rido ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u noqotay Saacid Shirdoon inuu fursad ku raadiyo inuu isbadbaadiyo iyadoona arintani ay niyad jab gelisay dhinaca madaxweynaha oo hadda bilaabay in la kala furfuro xildhibaanadii taageersanaa horeyna u saxiixay mooshinka lagu ridayo ra'iisul wasaaraha xildhibaanadii horey u saxiixay mooshinka iminkana ka laabtay ayaa markii hore aan la siinin wax lacag oo sidaasi u buuran marka laga reebo ballanqaadyo yaryar oo ka haysteen dhinaca madaxweynaha waxayna hadda ku andacoonayaan in ay ku qaldameen saxiixa mooshinkaasi iminkana ay dhinaca kale la jiraan haddii ay dhaqaalooda helayaan haddii aad doonayso guri yar haddaad doonayso guri weyn iyo meel baaxad weyn oo lagu noolaado jikado casriya iyo weliba beerta nasashada oo aad u ballaaran iyo guryaha iridda weyn laga gala kadibna ay guryuhu gudaha ku badan yihiin dhismahoodu ammaankooduna uu sugan yahay intaba waxaa kuula diyaaray shirkadaasi waxaa kaloo ay ku diyaarisay dadka doonaya hoteelada loo dhisay iyo guryaha qaab aad u wanaagsan iyo naqshada iyo guryaha caalamiga ee ku yaala qaaradda Yurub oo kale ayadoo shirkadu ku ballan qaadayso riyadaada inay run ka dhigto waxa intaas dheer meel kasto shirkadu ay dhistaba biyuhuna ay toos yihiin looguna talagalay goobo ay biyuhu ka baxaan wasaqda oo aan haba yaraatee ku istaagaynin waxa shirkadaasi ay ka caawinaysaa in korontadu ay si toos tahay waxaan meesha ka maqnayn air conditionkii iyo weliba qalabkii qaadaya qiiqa iyo awoodda enerjiga iyo xagga korontada ka timaada cadceedda weliba leerarka korontada laga dhaliyo dhinaca motorada wixii faahfaahinana waxaad kala xiriirtaan